السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا عشركيني سقالات oo aan ku baran doono aliases ee substring. Haddaba aliasesku waa maxay weyn leeyahay? Aliases are used waxa loo isticmaalaa aliaseska to temporarily rename si temporarily ama si ku meel gaar ahaan in rename magacii laga bedelo ee table or a column ama column. Since limida substring isaguna waxa weeyaan in column-kii aad qayb kamid ah soo qaadato. Tusaale ahaan haddii aan xaggan eegno substring-ga syntax-kiisu sanad noqonaya waxaad qoraysaa select kadibna substring kadibna column-ka aad doonaysaa inaad qayb kamid ah soo qaadato kadib start point macni barta laga bilaabayaad qoraysaa oranaysaa lambar 1 oo kala ka bilo xarafka koobaad end point waxaad ku joojistaa kala xarafka shanaad from badanaysa table-kii aad sheegaysaa table-kii laga soo dooranay markaas ayaad ku xigsiinaysaa. Tusaale ahaan waxaad tiri in first name-ka column-kan la yiraahdo waxaad soo akhridaa in xarafkiisa koobaad ilaa xarafka shanaad ayaa laga soo dooraya markaa. In haddaba aynu eegno aliaseska in syntax-kiisa marka table-ka marka la dooranayo la qorayaa select kadibna column names baa la qorayaa in column-yadii baa la qorayaa magacyadoodii aad doonaysay in table-ka ku magacoodo kale kadib waxaad qoraysaa table-ka magaciisii laga soo dooranayay kadibna alias name-kii aad u bixisay ee qoraysay temporary-ga ah. Haddaba marka column isagana aynu magaca si temporary uga bedelino syntax-ka aynu raacayna iyo habka aynu ku wareegayno qorayna isaguna waxa weeyaan waxaanu qoraynaa select kadibna column name as alias. Macnaheedu alias name-kan waxa weeyaan magacii aynu u bixinaynay column-kan ee temporary-ga ah aynu halkan ku qoraynaa kadibna waxaanu raacinaynaa table-kii laga soo akhriyay aynu ku sameeyno markaa practical-keeni. markaynu wax ka nimaadno new query ayaan soo dooranay kadib halkan database-keeni ayaan ka soo dooranaa sidii caadada ahayd kadib halkan ayaynu daba tegaynaa si aynu u sameeyno alias iyo substring labadaba. haddaba aynu horeysiino aliaska oo si temporary ah bal table-ka magac uga bedelno. halkan ayaa waxaynu ku qoraynaa select kadibna waxaynu qoranaa first name from Hargeysa saan ku soo marnay syntax-ka kadib waxaanu qoranaa as baynu leenahay as Hargeysa ahaan soo dooro kadibna saneen ku isu garaynaa sidaas ayaanu ku soo baxaya markaa table-kii oo ahaan lagu soo doortay. haddaba si aynu uga bedelno in columns-keeni ku jiray table-keen Hargeysa si temporary ah magac uga bedelno iyagana waa inaynu ogaanaa table-keeni sida waxa inaga oo dhigtadii ka soo wada akhriyna table-keeni Hargeysa si aynu isla aragno magacyada column-yadeena. sidaad halkan ku arkaysaan ka koobaad waxa weeyaan waa id first name last name gender telephone iyo city country iyo salary. dhammaantood haddaba waxaynu doonaynaa in aynu bal si temporary ah magac uga bedelno. dhammaantood halkan ayaynu ku xusaynaa marka waxaynu qoraynaa select waxa ugu horeeya id oo aynu leenahay waxaad soo akhridaa as number waxa ku xiga hakad baynu leenahay waxa ku xiga first name oo aynu leenahay isna waxaad soo akhridaa as magaca koobaad waxa ku xiga last name-ka oo aynu isagana leenahay waxaad soo akhridaa si magaca labaad as magaca labaad baynu leenahay waxa ku xiga gender oo aynu leenahay isagana jinsi u soo akhri jinsiga waxa ku xiga telephone aynu leenahay isna u soo akhri as mobile number mobile baynu leenahay saynu ku dayno waxa ku xiga city oo aynu leenahay city-dana waxaad u soo akhridaa as caasimad oo kale as caasimad waxa ku xiga
country aynu isagana qorno as baynu leenahay as wadan kusoo akhri baynu leenahay waxa ugu dambeeya waa salary oo aynu leenahay as mushahar soo akhri mushahar kadib waxaynu sheegaynaa tableka laga soo akhriyo oo ah Hargeysa kadib kuurigeena aynu execute gareynaa ama run gareynaa dhammaan kolomyadeenan waxa lagu bedeli doonaa si temporary ah magacyada aynu xagan ku xusnay ay kolomada sare lagu bedeli doonaa balaynu isleegna marka sida halkan ku aragtaan waxa ID lagu bedelay number magaca first name ki magaca koowaad magaca labaad jinsi mobile caasimada wadan iyo mushahar runtii waa temporary marka labaad aanu kuurigeena run gareyno all the way wuxuu ku soo noqonayaa kuwiisii originalka ahaa bal hadaba aynu isna isla eegno substring-ga aynu raana no select kadibna aynu ku xigsiino substring kadib waxaynu ku xigsiinaynaa magaca column-ka aynu doonayno inaynu qayb kamid ah soo akhrino first name-ka aynu leenahay waxaad soo akhridaa in leenahay number 1 ka bilow xarafka koowaad ilaa iyo bal xarafka halka been lana ilaa xarafka saddexaad macnihii column-keenan first name-ka ah ayaa waxa laga soo akhri doonaa saddexda xaraf ee horeeya waxa la soo akhri doonaa marka hamd oo kale cib oo kale sam ham wa oo kale intaas kale ayaa la soo saari doonaa markaan kuurigeena run gareyno saad u arkaysaan saddexdii xaraf ee horeeyay ayaa la soo akhriyay macnihii first name oo macnihii ah magacii koowaad waxa laga soo akhriyay inta aynu halkan ku xusnay oo ah saddexda xaraf ee horeeya bal haddaynu raahno ka waran shanta xaraf ee horeeya imika magaca shan xaraf ee ku jira soo ah aynu saakooga isku gareynaa marka hamza oo kale waa shan xaraf hamda oo kale waa shan xaraf hamza oo kale waa shan xaraf macnihii wuxuu soo akhriyay shan xaraf oo kaliya haddii aynu imika ka badino oo aynu bilmatalan ka dhigno ilaa 20 the all the way magacii 20 ma gaadho laakiin si wuxuu soo akhriyaa magacii oo dhameystiran sidaad arkaysaan sidaas ayaan u shaqeeyaa maxay ahayd tolay substring-ga cashirkeenana halka inoogu joogo. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.